ognahay Saadiya Bajaaj waxa ay muddaa oo xiriirad madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo oo waliba xabsiga jigdil iyo dhibaato iyo gobol falo waaweyn ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu geysatay iyadoo adeegsanaysa ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya qaasatan ciidanka asluubta iyo ciidanka nabad sugidda iyo waliba ciidamo kale maanta ayaa la rabay in maxkamad la keeno hase ahaatee waxaa la sheegay in maaragtay dib loo celiyay oo aysan qabsoonin fadhigii maxkamadda dad badan oo reer Muqdisho ah arintaasi maaragtay way ka soo horjeedaan waxayna qabaan in gabadhaasi si degdeg ah maaragtay loo sii daayo oo ay xorriyadeeda ay dib ugu hesho maadaama ay hooyo Soomaaliyeed oo waliba dan yar ah oo ka shaqeysa bajaajta ilmaheeda ugu xamaasha ay tahay Toronto inta su'aalaheena kala amuraysigeena aan ugu gudbin maxaa ku ognahay waxa lagu haysto Saadiya Bajaaj Saadiya Bajaaj wax kale lagu haysto dhowr jeer waxay kamid ahayd dhalinyarada ka shaqeysa mootada iyada iyo ay ka cawdeen sare u kaca ku imaaday qiimaha shidaalka iyo dhibaatooyin kale oo Muqdisho ka jiray oo dhinaca nolosha ah mar ay ka hadashay musuqmaasuqa iyo barakicinta dadka uu ku hayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo inuu dawladdiiba ka wada dhigay reerkiisana iyo waa ay jirtaa oo ay ka hadashay adigu xorriyada qowlka iyo maxaad u hadlaysaa baa waxa hadda lagu haystaa ay tahay Saadiya qofna ma dilin dhibaato kalena oo ay samaysayna ma jirto laakiin maxaad u hadlaysaa oo aad maaragtay anaga noo dhaliilaysaa baa lagu haystaa maxkamadda maanta waa la keenay waxa la sheegay in maxkamadda ay dib ugu celisay xafiiska xeer ilaalinta oo ay ku amartay in cadeymo dheeri ah la keeno maxkamadda maxay aragtay oo kiiskan dib ugu celisay kolley soo wax kale ma aha sida aan aaminsanahay in xitaa maxkamad la keeno kiiska Saadiya waxaa keenay culays ku saabsan hay'adaha dhinaca xuquuqul insaanka culays bulshada rayidka ka yimid culays dadweynaha gobolka Banaadir iyo dadka Soomaaliyeed ka imaaday iyo culays ay dowladda federaalku kala kulmayso dhinacyo badan oo maaragtay doonaya in Saadiya la sii daayo si marka xabsiga loogu sii haayo oo xog loo xukumo oo xukun muddo dheer ah loo maaragtay loo xiro oo xarigeeda loo xalaalaysto bay maanta dowladdu maxkamad ay u keentay maxkamadduna iyo garsoorka dalkuna waa ognahay inuusan madax bannaanayn oo mar walba wuxuu ku xiran yahay ninkii ku soo xiray baa maaragtay garsoorkana kaaga horeeyo kaaga saameyn badan Soomaaliyana waxa halkan dhigay waa cadaalad darro hadduu garsoorkeedu wanaagsanaan lahaa oo qof kasta cadaalad uu mudan yahay oo ka heli lahaa way fiicnaan lahayd hase ahaatee waxaan mar walba aan dareensanahay in garsoorka qudhooda ay og yihiin in gabadha cadaalad darro lagu haysto waxa lagu dhibaateeyayna ay cadaalad darro tahay taas way laga yaabaa inay u keeneen u direen in la keeno cadeymo dheeraad ah oo saacidi kara yani si loogu helo marmarsiinyo iyo xarig loo sameeyo xarigeeda yani wax loo food saaro sabab adag in la keeno waxay inta loogu celiyay in taata laga yaabaa laakiin waa ogaan doonaa waa tahay Toronto haddii qofkii dhalinyaro ah oo hadlaba xabsiga lagu tuuro ama la xiro sidee ba dhalinyarada ay wadanka ugu nageynaysaa runtii dhalinyarada wadanka inay joogto dhibaatooyin badan ayay ku qabaan dowladnimadeena maanta uma adeegto dhalinyaro uma adeegto dadweyne uma adeegto cid ay wax u tarto waxa aan dhib ka ahayn dowladnimada Soomaaliya cid ay wax u gasho ma laha waa ogtahay maanta inta Muqdisho ku nool oo qof dhalinyaro ah guriga ku soo toosayay oo maanta gurigooda la barakiciyay la burburiyay waa arkaysay arday iyo hooyooyin iyo dhalinyaro iyagoo gurigoodii maaragtay la dumiyay iyo meeshii ay ku noolaayeen imaanayay waa arkaysay dhalinyaro baraha bulshada maanta ka habaartamaysa oo fariimo uga diraysa madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday uu barakicin ku sameeyay dhalinyarada ninkii maanta tagi kara oo wadankan ka tahriibi kara oo meel kale aadi kara uu tashtay oo u dhaqaaqay ninkii dantu iyo duruuftu ku haysana kolley soo u noolaado ku noolaan doonaa marka dhibaatooyin badan iska badaa dawladdu inay wax u tartay iyada dhibaato badan ku abuuraysa maaragtay dhalinyaradii oo barakicinaysa oo dhibaateynaysa
oo noloshiiba u diidanba aan dhihi karnaa waxaan ognahay Sacdiye kaliya ma aha kuwa badan oo kale in xabsiyada Muqdisho ay wali ku jiraan oo aan codkooda la maqal oo aan codkooda waliba Sacdiye waaba loo doodoodayaa waxoogaa laakiin kuwa aan wali loo doodin baa jira oo wariyaal baa jira oo suxufiyiin iyo Sacdiye wax ka duubay oo hadda xiranaa jira waxaa jira dhalinyaro kale oo iyagana kamid ah madaxda fariin u diray madaxweynaha madaxweynaha soo dhamaaday oo iyaguna xiranaa jira dawladdu marka hadda waxa ay tamar ka dhigatay waxay tahay in qofkii hadlaba ay xabsiga dhigto oo ay tiraahdo adigana saadna dhahday waan ku xireynaa marka waxay noqonaysaa marka nin waliba dhalinyarada Soomaaliyeed hadda dawladdu meesha ku wada waxa weeye iyaguna inay qoryaha qaataan haddii dhalinyaradu qoryaha qaatana wadanku fawdu noqonayaa cid oo joogaysa ma jirto waa tahay Sacdiyo sida aan la socono waa qof dhalinyaro hooyo iska xamaalanaysa bajaaj ku xamaalanaysa waliba haddii gabadhaasi dhalinyarada hadal ay hadashay oo kaliya ah lagu xiray ma isdhihi karnaa wadanka waxaa ka jirta xorriyad hadal wadankan xorriyad hadal iyo xorriyad cadaaladeed iyo mid waliba way ka jirtaa maanta iska badaa Sacdiye oo hooyo oo dhalinyaro ah oo maanta iyadoo ay isdifaaci karin be maanta ninkii aan maanta qori haysan oo dawladdu aysan maanta uga baqaynin maaragtay qori iyo awood iyo qabiilkiisa ama bahalkiisa xabsi uu galayaa marka runtii waxa weeyaan dawladnimada Soomaaliya waxa weeyaan waa mar walba waxa la isugu dawladeeyay shaatiga dawladda qofku jooga ama askari ha ahaado ama madaxweyne ha ahaadee inuu maaragtay dadka uga argoosto shaatiga dawladda ayaa mar walba dhacda oo lagu weeraro mucaaradka oo lagu weeraro maaragtay dadka kale oo xorriyadooda iyo aragtidooda ka hadla oo lagu weeraro dadka wadanka ka hadla marka taas waxa weeyaan mar walba dawladdu iyada in la dhaliilo in la amaano mooyaane in la dhaliilo ma ogola